سيدكن wuxuu leeyahay assalaamu calaykum marka hore culimada oo dhan waan salaamayaa waana culimo aan aad u jecelahay had iyo jeerna wadciga jira nooga muxaadareeya ilaahayna cimrigooda ha dheereeyo su'aasha aan weydiinayaa waxa weeyaan waxaan ahay wiil dhalinyaro ah waxaan dhigtaa jaamacadda Camuud waalidkay dib ayay ku tahay bixinta bisha jaamacadda ay iga bixinayaan waliba intaa waxaa noo dheer iyadoo jaamacadda la bixinayo in aan isticmaalno koobi fara badan iyadoo assignmentiska iyo waxyaalahan loo dirayo koobiya haddana lacag loo baahan yahay ay jiraan koobiyadaasina ay dhib ku tahay in uu waalidkay bixiyo anaguna bixino marka aan fiiriyo mustaqbalkana waxa ii soo baxaysa in ardaydii jaamacaadka ka soo baxay ay wali suuqa wada fadhiyaan marka maxaa mushkilad ku jirta haddii aan tahriibo mise taladii haysaan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira horta salaanta waan ka qaadnay ardayga waan ka qaadnay marka labaad xal baan u haynaa xal baan ku haynaa xalkaan ku hayni waxa weeye horta cidda wax qaybisa ee qusumka qaybisi waa ilaahay wadaadna ma qaybiyo professorna ma qaybiyo maraykanna ma qaybiyo cidda risqiga horta gacanta ku haysata waa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofku isagoo caloosha hooyadii ku jira ayaana risqiga horta la qoray qusumkaasi uu qoraye ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu u kala ballaadhiyey risqiga walow basata allahu risqa licibaadihi labagaw fi lard ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala haddii ilaahay risqiga u ballaadhin lahaa dadkoo dhan qaar badan baa kibri lahaa oo qooqi lahaa oo adduunyadan fasaadin lahaa qaar ilaahay aqniyuu ka dhigay qaar dhexdhexaad buu ka dhigay qaar waaba iska fuqara ilaahay xikmadiisa horta sidaa ku tegtay sida ay danto adiga kuugu jirtana ilaahay baa yaqaana maslaxadeennu siday ku jirto in qaninimaada aad ku roon tahay inaad faqriga ku roon tahay inaad dhexdhexaadun inaad ahaato aad ku roon tahay horta ilaahay baa og in badanoo waxaa jirta dadka marka ay masaajidda ku jiraan gaar ahaan inta badan dadka shaqaalaha ee dowladaha u shaqo tega way yaqaanaan dadka masaajidda ku tukadaa marka ay bilaa shaqo yihiin masaajidda camiraan safka hore ayay soo galayaan safkaa hore waxaad arkaysaa rag masaajidka ku taxan mar allaaliya marka la soo magacaabo oo laga dhiga ama barasaab ama laga dhiga maayir ama laga dhiga xoghaye ama xafiis loo dhiibo ama hay-adi qaadato xataa hadduu ciro lahaa timihii yaraa intuu madoobeeyo ayaa dib allaaliya dib meel alla meelow ninkii maraana dibba u arkayni horta waxa weeye mid roon ilaahay baa garanaya qofka mu'minkiihi waa taa uu ka warramay sheekh maxamed mafhuumu lcibaada waa inaan saa u fahanno marka waxaan leenahay horta risqigaa ilaahay baa haya ta labaad nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci anna nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqaha bal xadiidkaa u fiirsada isagaa inagu filan inankaa su-aashayna weydiiyey iyo dhammaanteen kaaba inagu filan inna ruuxa alqudus wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam malaku jibriil wuxuu ii waxyooday oo ii sheegay anna nafsan lan tamuuta baleegada anna nafsan nafina waxa weeye nafsantu waxa weeye luqada carabiga way garanayaan dhalinyarta ciidan wax ka garanaysay waa nakiro nafna we nafna anna nafsan lan tamuuta waa wax adag xagga carabiga marka loo eego lanta iyo waxay keenaysay waa la yaqaanaa qofna inuuna dhimanaynin xataa yastakmila risqahu ilaa aw luqmada ugu dambaysa aw adduunkan ka qaado oo liqo adduunkan kama tegayo marka waxaan leenahay inankaa xalkaan ku hayni waxa weeye horta risqigii saas buu u qaybsan yahay in aanad wax hayna ceeb maaha nabigeenni calayhi salaatu wasalaam baa laynoogu tusaaleeyey in mararka qaarkood intaas oo maalmood 3 caana maal inaanan gurigiisa
dab lagu shidaynin mararka qaarkood inuu boggiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhagax uu ku xidhi jiray su-aasha labaad aan ku weydiinayaa waxa weeye iyomaa kuu roon midkee roon inaad adduunkan ku faqiirto laakiin aad iimaan aad haysatood hani tahay iyo iimaankaagii inaad khatar geliso iimaankaagii mustaqbalkaagii rasmiga ahaa inaad khatar geliso rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laysa alghinaa bikahrati alcarad haninimadu maaha berbidhka adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda maaha inama alghinaa hina nafs haninimadu waa ta qalbiga wey waa hina nafsi wey hina nafs marka ilaahay subxaana wa tacaala qalbiga aghniyaha inaga dhigo qalbiga ilaahay aghniyaha inooga dhigo inaanad waxhaynin ceeb maaha laakiin waxa weeyaan waxa daran iimaankaagii ood weydo iimaankaagii islaamnimadaadii dadnimadaadii inaad weydood khatar geliso waa mustaqbalkaagii maxaad malaynaysaan xadiidkan ku khatimayay waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay maalinta qiyaame dadka kii ugu faqiirsanaa ee ugu baahi badnaa ee baahi iyo gaajo waxa weeyaan yacni dhulka kii ku dheganaa dhulka ayaa la keenay maalinta qiyaame oo ahluljanna oo iimaan lahaa oo ilaahay calaaqa iyo xidhiidh wanaagsan la lahaa markaas baa jannada la gelin hal mar baa sidaa loo gelin markaas baa waxaa laga odhan yaa cabdallaah weligaa bu'si iyo dhibaato iyo kadeed iyo gaajo weligaa ma aragtay markaas baa wuxuu odhan yaa rabbi weligay ma arag buu odhanaya hal mar oo sidaa jannada loo geliyey ayuu wixii oo dhanba ku iloobayaa waxaa la keenay ancamu ahli dunya qofkii adduunyada ugu raaxo badnaa baraare adduunyo baraare soomaalidu waxay dhahaan dumar ragna waxay ka sheekeeyaan baa layidhi balaayadooda dumarna baraarahooda marka baraare adduunyo oo dhan ninkii ay iskugu timiday ayaa la keeni weligii baanan dhibadhe raaxa un ku jiray laakiin ahlu naara oo iimaan waayey ama cadaaba la mutaystayba marka naarta sidaa loo geliya laga soo saaraa waxaa la odhanaya yaa cabdallah weligaa raaxa ma aragtay weligaa markaas buu odhanayaa yaa rabbi weligay ma arag buu odhan weligay waxa weeye waxa la isbarbar dhigi karaba maa xalku marka axaadiistaas buu inooga muuqdaa wallahu aclam bismi illahi raxmaan raxiim waxaan ku dari lahaa sheekha kolley uu su-aashaa si fiican buu uga jawaabay waana su-aasha runtii waaqiciga ah ee maanta nolosheenna taalla ee ardayda haysata xagga waxoogaaga lacagtee la bixiya jaamacadaha ama fiida la idhaahdo waa arrin jirta oo runtii arday badan haysata oo waalido badan iyo qoysas badan aanay awoodin laakiin waxaan xasuusin lahaa uun ardayda waxaa jira carabiga waxaa jiri jiray adabka sugaanta carabiga in la idhaha cisaam baa jiri jiray marka wuxuu ahaa nin iskoris ahoo isagu ma garanaysaa meel hoose intuu iska soo qaaday keligii aabba iyo hooye iyo cid soo caawisayna aanay jirin halka u sarraysa ka gaadhay maamulka markaasaa lagu yidhi maxaa arrintan xaggeed ka keentay baa lagu yidhi maxaad ku gaadhay darajadan markaasuu yidhi nafsu cisaamin sawadad cisaama wacallamathu alkara waaliqdaama wajacalathu ama wasayarathu batalan humaama wuxuu yidhi ninkan cisaam la yidhaha naftiisa ayaa madax ka dhigtay buuhi iyadaa wax walba bartay buuhi geesinimada iyo wax walba iyadaa bartay buuhi geesi la yaqaana iyadaa ka dhigtay buuhi marka ardayda waxaan odhan lahaa kunuu cisaamiyiin waxaad noqotaan kuwa iyagu marka xataa lasoo dugsiga dhexe lasoo gaadho ee laga soo baxo secondariga loo soo wareego ardayda kuwa yani waxa weeye fariidadii waxay sameeyaan waalidkooga culayska fiidooda way ka qaadaan waxbay dhigaan ardayda kale ee u baahan ee dugsiga hoose dugsiga dhexe soo maraysa ee u baahan in la caawiyo waxbarashada ayay ka soo dhigaan 2 xaafadood 3 xaafadoodba mid walba waxoogaa yar ka soo qaata carruurtana uu si fiican ugu dhigaa secondariga markuu sii dhammaynayana wuxuu u dhigaa kuwa form 1 iyo soo maraya ayuu sii dhigaa waxbarashadiina muraajacay u tahay jaamacadda markuu gala isagaa isku filan qolada secondarigu 3 kooxood soo dhigaya 3 yaroo waqti u kala tegaya waxoogaa buu soo urinaya oo bil walba intaa yar buu qaadanaya inuu isagu cuno oo uu ku shaahshaaho iyo inuu fiida iskaga bixiyo u noqonaysa idan marka bishii loo qaybiyo 4 bilood jaamacaddu ma 4 bilood baa lacagta la qaadaa mise 5 bilood baa la dhigtaa 5 bilood 4 bilood ugu yaraan waa 4 bilood u qaybi lacagta hal mar semesterkii ardayga laga qaadayo 4 bilood markaad u qaybisa bilba waxoogaa baa ku soo hagaagaya inta uu 2 xaafadood ka soo qaadaya ka badan
marka inaad usradaada iyo qoyskaaga hooyada iyo aabbahanad ka cilciilsiin laakiin adigu aad isdabarto oo aad haddaad doonto kuuli gasho khamiista iyo jimcaha kuuli aad gasho ood soo xamaalato oo intaa yarna aad ka cuntayna meesha aad dhigato waa wax la samayn kara wey. ta kale markii xal maxaad noo haysaa oo tahriibta ardaygaasi uu ku soo daray oo yidhi miyaan tahriibnaa mise shaqala'aantaasaanu iska fadhinaa waxaan odhan lahaa waa runoo in arrimaha la isbarbardhigaa way fiican tahay. halkan markaad jaamacadda ka soo baxdo waxaa la isbarbardhigayaa shaqo fiican oo ku raalligelisa oo ku anfacaysa iyo shaqo aanad sidaa ugu qanacsanayn laakiin waxuunbaa shaqo la helaa. dugsiyada badan ee iskuulla magaalada ku yaalla ayaa part time iyo gelin iyo wax laga dhigaa waxuunbaa qofku uu shaqo helaa markuu soo qalinjabiyo hadduu shaqo doonayo. meelaha macalinimada loo doonto ayaa la doontaa. qofkani wuxuu rabaa shaqo fiican oo uu aad ugu qanacsan yahay ama shaqo aanu aad ugu qanacsanayn, labadaa midkood weeyaan. laakiin tahriibtu waa maxay? tahriibtu waxa weeye inaad dhimato oo noloshaba ka tegtay. imisaa dhimanaya maalin walba oo dhinta oo badda ku qarqooma oo dhexda loo joogsadaa oo meelaha ku dhinta. inaad dhimato iyo waxaad kala dooranaysaa iyo nolol noocay noqon doontaanad garanaynin. imisaa nolosha ka dhacay markay tegeen yurub iyo dhulka loo tahriibaya intay tegeen nolosha ka dhacay oo waalidadoodii dib u soo xasuusan waayey oo meelay ku nool yihiin la garan waayey oo iyagoo saaqiday soo noqday. labada khiyaareed kala dooranayso lama hubo xataa nolosha halkaa tegaysaa madmuun maaha. markaaba janno lama galayo mog. sheekh maxamed bay ahayd arrintaa inuu kolley ka hadlo, isagaa soo arkay oo xaggaa tegey. waxa weeye madmuun maaha. halista iyo tahlukada dhexdaa taallena waad ogtihiin. ilaahayna wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum, naftiinna ha dilina, walaa tulquu biaydiikum ila tahluka. sala allahu wasalam calaa sayidina waan iska dhammaystiraynaa maadaama waqtigii salaada ay gaadhay. su-aalaha inta kale inaga insha allahu tacala sheekha waan ka codsanayaa maadaama waqtigii salaada la gaadhay inuu inaga soo gabagabeeyo. laakiin sheekh cilmi jazahu allahu khayr iyo sheekh xasanba iyo sheekh maxamed oo ka horeeyey xaqiiqatan aad bay u iftiimiyeen masaa'il fara badan oo dhallinyaradan aad iyo aad wejiyada quruxda badan ay aad ugu baahan yihiin. laakiin su-aashaa cilmi uu idin weydiiyey ee ugu dambaysay baan wax yar ka odhanayaayo horta shaqada meeshaa laga shaqeeyo ma isweydiiseen? maalin baan salaad wuxuu yidhi sheekh cilmi isagaa meesha soo arkay wakhti 6dii subaxnimo ah ayaa waxaan soo agmaray meel waan ku cusbaa markaa London, meel shopping center la idhaahdo. waa meel aad u weyn. markaa waxaan arkay inaan Soomaaliya oo meeshii hor masaxaya oo xaqaya oo subaxi dhaxantii barafna u dhacaya. markaa waan cusubahay anuu waa la yaabo dhallinyaradii baan ku idhi war ninkan iyo gabadh Soomaaliyeed maan arkaynin oo meel had maraysa. markaasaa waxaa laygu yidhi oo maxaad uga jeedaa? waxaan idhi de shaqadan sawnagii Soomaaliya markaan joognay sawnagii diidi jiree nici jiree dhulxaaqiyo. hadda sheekh cilmi wuxuu ka sheekeynayay nin isdabero oo macnaa waxa weeyaan part time wax dhigo. waxaasi waa sharaf iyo shaqo fiican. shaqooyinku kuwa xunxun bay leeyihin. meeshaa waxaa laga shaqeeyaa horta in aad iyo aad loo fahmo way u baahan tahay. waana wax xaqiiqatan xadiid duu shujuun ah oo qofka waad arkayseen walaalkeenoo dhowr iyo 30 sana ku noolaa buu yidhi wuu ooyey markii uu hadalka bilaabay. markaa taasi lectures dhaadheer bay u baahan tahay oo la isugu yimaado oo la gorfeeyo oo la hufo oo la idhaahdo horta maxaa faa'iidaa maxaa khasaaro ah oo la qiimeeyo. noloshu waa wax aad u qiimo badan. markaa wuxuu yidhi sheekh cilmi haddaad iyadiiba weydo oo tahriibkiilan waa waddo khatar ah, haddii imika waddo fiican la marayo oo la leeyahay ama isxambaar wixii la odhan jiray oo hooya ay tidhi waa maaragtay waan isqabnaa iyo inantii walaashay baa igu kaxaynaysa inaan qaba iyo arrimihii kale faraha badnaa ee aynu garanay. halkaana marka la tago la isfuri jiray ee la odhan jiray walaashay baan maxkamadda geynaya soo furaya kaalay raac. war ma malaashaabaad marka hore qabtay ood imakala furaysaa. arrimahaasi waxayba ku roonaayeen halaag nafsii kuma jirin. ifmi kale ha ku jiro iyo akhlaaq xumo iyo waxaasi. laakiin tan tahriibku waa tahluka linnafs ayaa ku dhacda dadka intooda badan. marka taasi waxa la isweydiin karo ama miqyaas laga bixin karo ama hebel baa badbaadaye la odhan karo hebel xataa hadduu badbaaday muxuu sameeyey. qaar baa igu yidhi wuxuu sameeyey
gabadha yaraan meesha ka ilaashanay buu iga guursaday oo xaggaa markuu tegey xoogaa lacagunbuu soo diro islaami iyo wixiiba uu kala marxabaysiiyey wax kaleba lama weydiinin markaana waxaan rabaa tuyaro cadoon ilaashanayey inaan cidiga hor qaadin ayaa rabaa rag badan baa saa igu yidhi marka haddaad tiyaree caddayd baad weydo oo xaggii iyo aakhiro u kacdo wax kaa horreeyay maad ogtahay mise waxaad isleedahay halkaana xuralcayntii baa kaaga horrayso adoo ishalaagay miyaad xuralcaynta halkaa ku helaysaa uma badnaa ilaa man raxima rabbuhu waad ogtihiin dee qaatilu nafsi inay arrin aad u khatar badan tahay waxay ahayd muxaadaro xaqiiqatan iyo maaragtay aad iyo aad u qiimo badan walaalaheen baa inoo soo gabagabayn doonaa laakiin waxaanuun leeyahay rabbi aynu ka wada cabsanno waxa weeyaan man asbaxa aaminan fii sirbi mucaafan fii badani cindahu quutu yawmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha qanaacada waa inaan leenahay macnaa waxa weyan khudi alqanaacata min dunyaaka warda biha low lam yakun laka ila raaxatu lbadani marka jazakum allahu khayr